السلام عليكم maanta waxaan rabaa inaan ila wadaago sida aad ku dhisi kartid caloosha hoose waxa loo yaqaan low wraapka waxa yeelay waa muhiim qofka inuu saddex qayb calooshiisa ka dhiso geesaska dhaxda iyo meesha ugu hooseyso qaas ahaan meesha ugu hooseyso aad bay u adag tahay si lagu dhiso laakiin waxaan tusayaa afar exercise oo aad ku dhisi kartid caloosha hoose so halaga faa'iideysto soo qaabka koowaad sida u jeedin sida noocan ah u fariisanaysaa wiili gabar buu dhihi karaa saan u fariisane lugahaada kor u soo qaaday waxay robeene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 so 15 xabaa ka dhaxaysa 4 set كيف عشان تونا كده 45 second أم 1 minute أنا سنسا كبعد هذا نسيدي أكو علنسا أو 4 set أو من 15 هذا قاب كلمات أي يعني توصايا أكو جري كرتي عروشة وحلو يقانو mountain climber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 soo qaabka noocaasna 15 ka dhehaysiin oo macnaha afar jeer oo miftira ahaan 15 soo waa qaybta labaad hadda waxaan tusayaa qayb saddexaad aad caloosha hoos ku jiri kartid sidan ayaa u saxanaysaa lugahaada kor u soo qaaday ka bacdi 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 so waa muhiim qofka inuu nasto oo macnaha markuu jimicsi walba u dhameeyo oo macnaha haddana sidii ku sii socdo waxaan tusayaa qaybta ugu dambeyso oo caloosha hoose ku jiri karta sidaan ayaa u fariisanaysaa ka bacdi haday waxaan dhahaynaa waxay ahayd mountain climber laakiin hadda iyadoo ah oo nooc kala ah oo macnaha oo ku dhisi kartid caloosha hoose sidaan ayaa dhahaysaa markaa dhahdid hore u soo bixinay 1 lugtan kala tirinaysid lugtan kaliya soo hore u soo bixinay 3 4 soo qaabka noocaasna waxaa ka dhahaysaa 15 oo afar sad maxaa yeelay waa muhiim qofka inuu caloosha xanuujiyo maxaa yeelay caloosha dhaqso dhismato qofku waa muhiim jimicsi walba uu caloosha u suubinayo inuu dareemo insha Allah kuwa badan ka faa'iidi doontiin waan isoo wadaa fadlan hadduu video ku anfacay asxaabtaada meel walba ay joogaan share la dheh youtube-kayga subscribe ku dheh خير يعني